gudoomiyaha golaha guurta Soomaaliland Salebaan Maxamuud Aadan oo saaka furay kalfadhigii 67 ee golahaasi ayaa waxa uu cadeeyay in madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi uu afkiisa ka dhowray in uu bulshada u sheego in aanay doorasho qabsoomeyn. saaka waxaynu isugu nimay furitaanka kalfadhigii 67 aynu isugu nimay howlo fara badan baa ياله أو معها شروع معها شروع لما الله بيروي اللهم بالبوبيوي تلقوا فريق قلبين بسران هربا أولي و على ذاك الصعد على ذاك الصعد ومغلس المدحوينه الدورسويكي وانا تاغي وحولو صعدان ما جريتو ووقت يلي وحيلا هو الوقت يالي قلباي ولي ما هيلو لكن وحولو إذا صعدان كنت الدورسويكي حكومة انت كلام بدنا ما تشيره بدان كيد قوم بغداد بده لكن في وقت يدي بيكون تلقري وهذا كقل هدي بركي سود واتو هاي سدا شي تكاسل بغطو بيد سوقري لكن ملحوينون وكي كدايدين ايمان ما دايستان راديو يلي اسنوا كي دايريني وراهي وافكم بو كدوما قرقرن مايو افكم بو كدوري marka arinta soo waarin taagan weeye geesta kale gudoomiyaha golaha guurta Soomaaliland Salebaan Maxamuud Aadan ayaa waxa uu maamul goboleedka Puntland ku hambaliyay kaalintii wanaagsaneyd ee ay ka geysteen suldaankii lagu dilay deegaanka Baran kaasi oo uu sheegay in ay dadkii u kala xidhxidheen isla markaasina arintaasi ay dhex galeen Salebaan Maxamuud Aadan oo markale arintaasi ka hadlay waxa uu yiri xagga sanaag bari oo tiinka boqorka lagu dilay halkii ma dhaafin sagay yimaade nabad bay qaateen dad ku bogaadinay waa warsageli kow qoladaas Puntland waa u soo gurbato iyaga u kala xidhay ma odhanayno maxay noogu yimaadeen ciddii wax qabatay waa oo maadamay